الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. أما بعد، وسورة البقرة يا آياته منافقين تكور رمي آيات السقالية طبعا قال الله تعالى أو كصيب مثلهم تسالهم waxau ka dhigay munaafiqiinta ka مثل الذي tusaalihi oo kale kii oo kale la mid waynu soo aragnay aw ka sayib min amroob oo kale macna ka asxaabi sayib mudaaf baa loo soo qadaraya ka asxaabi sayib waxaad munaafiqiinta u eegaysiin kartaa ku shabihi kartaa qolo roob u daayo min as-samaa'i xagga koru roob ka soo daaya fiihi dhulumaatun wa ra'dun wa barq roob waxa ku dhex jiro wata gudcuryaal iyo racdiyo ah maxay onkod iyo barqiyo hilaaca yajcaluuna asaabicahum farahooda waxay gelinayaan oo looga jeedo xubnaha waxay gelinayaan dadka roobku u daaya fi aadaanihim dhagahooda saafarta u gelinayaan min as-sawaa'iq danabka ama hanqarka dhacaya daraadi giridaahaya ka daraadi ba faraha dhagaha u gelinayaan حذر الموت يجوا كوعب سنة يدمش وإسلام نار مباه ضنب كاسيد دلاه والله محيط إلهي وكوبي الكافرين قال بالكافرين قال هذا والله محيط بالكافرين قال هذا إلهي لو ولا بمو كمرة هذا وها إسلام يجوا هنا يدين كوبين استجا كوبي يكاد البرق هلا عن ولا لعض هيا يكاد وحود وانا يهلا عاص البرق يخطف أبصارهم inuu indhahoodan dhufto oo qaadaba kullama adaa lahum markasta oo hilaacaasi dhulka uu iftiimiyo mashaw fiihi dhaxdiisa soconayaan oo way talaabsanayaan wa idaa adlama calayhim markuu ku madoobaado ee uu hilaacaasi dhaafo qaamu way istaagayaan ilaa meel uu dhaqaaqaan ma jirto walow shaa allahu hadduu ilaahay doonayo لذهب وحو لتجي لها وكقاضي لها بسمعهم مقل كودا عادية وأبصارهم يأرجودا أرجياشودا إن الله على كل شيء قدير إلهي وحول الباء استجا أيا كره وأن وحباء كؤت كان من رب سبحانه وتعالى تصالح روين صارجنا كنوا تصالحه لبعض marka eraygaas aw ah culimadu waxay yiraahdaan waa maani'atul al-khuluw la maani'atul jam' oo macnihiisu yahay eraygu wuxuu diidayaa inay labada tusaaleba meesha ka wada baxaan laakiin ma diidayo inaad labada tusaaleba wada siiso munaafiqiin labada tusaale wada siin kartaa waxaad oran kartaa munaafiqiintu tusaalahana way leeyeen hore tusaalahana way leeyeen labada tusaalada ay ka horena u bixinayo wareer kan dambana u bixinayo cabsi labada tusaalaba way leeyeen labada tusaaloon baan ka wada bixi karayn meesha maani'atul jam'i ma huwa maani'atul khuluwi meeshii baan ka wada bixi karayn labada tusaale waxa markaas mudan inaynu wax ka xusno tusaalayaasha quraanka dhexdiisa quraanku tusaalayaal badan buu bixiyaa axaadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyaguna tusaale ayay dadka siiyaan marka tusaaluhu faa'iidooyin badan buu leeyahay faa'iidooyinka waxa kamid ah wacdi markuu ilaahay dadka wacdiyo tusaalu siiyaa waxa kamid ah al-hafu wa-zajr dadka marka wax lagu dhiirinayo ama wax loo diidayo tusaala la siiyaa waxa kamid ah al-i'tibaar tusaalaha saajira ku cibra qaado waxa kamida taqriib al-murad lil-aql wixii la doonayo oo aqliga loo soo dhaweeyo tan shaygii lagaaga waramayay marka sawir lagaaga siiyo wax lagu raado waxa lagu sheegayaa kanuu la mid iyo kaasuu la mid yahay waxaad arki karayso waxa weeye waad ku qancaysaa tan quraanku jannada ayuu aad uga waramaa de waxaan aynu adduunka ku hayno tusaale inooga dhigaa
tusaalayaashu waa kuwa ilaahay wuxuu yidhi watilka alamthaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaasha san qur-aanka dhexdiisa samaynaya aan idin yeelayaa dad caqliluun baa ilaahay ka qaatoo fahma kii kale war caadiya ayuu qaadanaya watilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun inay dadku fikiraan ay fahmaan tusaalayaasha ilaahay uu siinayaa mudan faa'iidooyinka tusaalayaasha waa kuwaas sidaasaana ilaahay uu inoogu dhiiriyey faa'iidooyinka waxaa ka mid a iimaanka qur-aanku mar uu ku bayaamiyaa sidan aynu arkayno waa tusaalihii iimaanka iyo tusaalihii gaalnimada fadeexaddii munaafiq khayrkii dadka la isugu yeedhayo gaalka iyo muslimkoo laba tusaale loo kala bixiyo haddaynu eegno tusaalayaasha qur-aanka halkaa imika laga bilaabo ilaa suuratu taxriim 21 maal ama koob iyo afartan baan koob iyo afartan tusaale ayaa isdaba yaala oo ilaahay dadka wax ugu iftiiminayo oo wuxuu u sheegayo ugu soo dhaweynayo koob iyo afartan ka tusaale waa koob iyo 20 suuradood min suurati al-baqara ila suurati at-tahrim marka meesha oo suurada ugu tusaalayaal badanina waa suuradan imika aynu marayno ee suuratul baqara 9 tusaale ku jira waxaan jecelahay waqti kooban si aad sawir fiican uga hesho inaan yar dul marno tusaalayaashaas halkan ilaahay laba tusaale bixiyay mathaluhum kamathali alladhi istawqada naara aw kasayyibin min as-samaa an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثله كمثل صفوان ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أيود أحدكم أن تكون له جنة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكنتم على شفا حفرة من النار آيات مركز آل عمران يكبل آمنس مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وآل عمران سورة الأنعام بعد قاعدة كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران سورة الأعراف مثله كمثل الكلب سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع سورة الرعد إلا كباسط كفيه إلى الماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد ساسادو سيوة سادو مركا كلنا وحب لام ضرب وضرب الله مثلا قرية وضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فكأنما خر من السماء ضرب مثل فاستمعوا له مثل نوره كمشكاة ساسو بعض وضعيس marka intaas oo dhan wuxuu inaga jeednaa marka aad aayad ka marayso in aad fahamto xigmadda looga jeedo iyo waxyaabaha laga qaadan jiray amthaash oo dadka adiga jeer markuu quraanku u waramayo shay waxa uu sheegay aqligooda ay ku fahmayaan laakiin markuu tusaalahan siiyana ishii bay ku sii fahmayaan taas inta marka aynu kaga gudubno labadan tusaale ee imika aynu soo aragnay midna dabka ilaahay uu ku shabahay midna roobka ka hore waynu soo aragnayoo waxa iftiinka keenaya wuxuu iimaankii markii hore ay galeen waxa madowga ku keenayna wuxuu gaalnimada u baxeen kan dambe wuxuu ilaahay sheegay roob iyo madow uu leeyahay madowye uu leeyahay iyo onkod iyo hilaac iyo bahalkan hanqarka la yiraahdo iyo danab labadaba loo yaqaana de kahrabaaga watee meelaha ku dhaca gubaba marka la eego nimankan munaafiqiinta xaaladooda tala madarka waxa la mid quraanki
ودي سيدو روب كنو لا يدولك أي قرآن كنا قلوب تونو لا أما إسلام كوا قرآن كي iyagu mararka qaar kood waa kuwa wax ka sheego shubuhaad iyo madmadow ay ku furaan waa dhulumaadka shubuhaad iyo madmadow mala quraan laakiin iyaga si ay dadka uga firdhiyaan shubuhaad iyo madmadow ku fura waa dhulumaadka quraanku wuxuu leeyahay wacdi iyo waciid wacdigu waxa weeye bushaaro iyo baraare dadka uu u yabohayo wanaagsan taasina waxa weeyaan maxay waa barqiga iyo hilaaca quraanku wuxuu leeyahay waciid iyo hanjabaad iyo huruuf loo ballan qaadayo iyo halaag loo ballan qaadayo nimanka munaafiqiinta iyo gaalada kaasina waxa weeye maxay waa sawaaciq danabka weey marka munaafiqii kolku quraanku wacdi iyo wanaag sheegaya wuxuu salaam wallahi adna wada shahaadato waad ku jirtaa waadigan muslimkii dhex socda ayuu oranayaa marka waciidkaasi uu yimaadee munaafiqiinta la fadeexadeeyo intaasoo aayadood oo tilmaamahooda dhigdhigaya ay soo degaan sida suuratu tawba oo kale iyo halkan aynu ka maraynay suuradan markaana uu naxaya sida uu naxo qofka had iyo jeer danabka iyo hanqarkaas uu ku soconayo marka waxay isku dayayaan waciidka iyo fadeexada munaafiqiinta ay socoto aayaadku ka waramayaan inay u dhagooleeyaan سورة التوبة آخر كذا واحد أركيس يجوا حضرتي النبي قام مجلس كي النبي فرديا عليه الصلاة والسلام والنبي قام يلا فرديا أيام مركو القرآن كل ماذا وحرنش ماذا قال آنفا وتقول له ويد محو آخرية حتى ما شويت شو جنبه مركا تاسوا ودقولين أنت أي صواعق ذا يضنب كقرآنك أي يسكت قتيرة يا مركا وحيوي قان العلماء البلاغة التشبيه التمثيلي بالله تشبيه التمثيل marka nimankan xaaladda ay leeyihiin iyo xaaladdaas la isku shabahay roobka iyo inta uu wato waxa la mid ah quraanka iyo inta uu wato marka natiijada ka soo baxdayna waxa weeye quraanka kariimka iyo khayrka uu leeyahay kama faa'iideysanaya munaafiqiin laakiin halaagaas uu kala kulmaya aw kasayibin min as-samaa'i waxaad ku shabihi karaysaa roob xagga sare biyo xagga sare ka soo daaya sama waxa la yaabo wixii ka sareeyo fiihi dhulumaatun wa ra'dun wa barqun roobkuna gudcuriyaal buu wataa iyo onkod iyo hilaac yajcaluuna asaabi'ahum fi aadaanihim farahooda ay dhagaha gelinayaan kale waa intan u horeysay xubnaha yaryar min as-sawaa'iq hadar al-maut tanabka iyo hanqarka dhacaya daraadiyo geerida ka cabsanaya wallahu muhiidun bil kaafiriina ilaahay gaaladu koobay bushaarada qaata way dad badan baa gaalku wax weyn u leeyahay aad uga cabsada marka wallahu min waraahi muhiit ilaahayna gabigooda buu koobay marka haduu ilaahay qalbigaaga ku weeyay gaalku qalbigaaga ku weynaan maayo ilaahay baa dhan walba ka koobay isaga uu magan gal gaalkaad ilaahay ka magan galaysa oo shaydaankaad ka magan galaysa oo sharwadeenkaad ka magan galaysa ilaahayna waa kugu filayay wallahu ghalibun ala amri hilaaca isaga ah yakadul barqu yakhdafu absaarahum kullama adaa ma lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qaamu hilaacaas wuxuu dhawaanayaa inuu indhaha qaado inaad u fiirsatay mooyaane marka hilaac walala lacu yiraahdo adigoo madow ku jiray muddaanad waxba sii arkaynin oo indhuhu ku waxaysbayaan oo shucaac ka duulaya sidaas oo kale weeyaan oo quraanka kariimka ina dibkaas ku haya munaafiqiinta aad bay uga naxayaan markuu hilaacaasi baxo way yara dhax soconaya marka muslimka loo bushaareeyo waxay soranayaan mala waa ku jirtaan idinkuna way ku yar bushaareysanayaan marka la kala saaro muslim iyo munaafiqna ee quraanku kala saarana waa idha adlama alayhim qaam markaasay quusanayaan labada xaaladood baa la isku shabaaya ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الهي awoodii way badan munaafiqna isaga uun baa ka dambeeya haduu doonayo indhahan ay wax ku arkayaan iyo maqalkaba uu ka qaadi lahaa uu dhaga tiri lahaa oo uu indha tiri lahaa haduu doonayo qayb kale inuu sii gudubnay munaafiqiintii tilmaamoodii 13 ka aayadood bay ku dhamaadeen wixii ay sameeyeen ma facalu wa ma fucilu waxay falaan iyo wixii lagu falay soo aragtay iyaaka wa nifaaq
marka waxa cudurka la yiraahdo nifaaq iska ilaaliyo ka feejignow يا أيها الناس بولا هيد الضضوا اعبدوا ربكم إلهي نعابدا الذي خلقكم إلهي ذن أبوري والذين من قبلكم أمده كهريين أبوري لعلكم تتقون وحاولوا ديننا إلهي كعبستان سبحانه وتعالى الذي إلهي عابدا جعل لكم الأرض ملكا إذن كدغي فراشا جوجل والسماء سمدي سريسين وحو كدغي بناء مدسن وأنزل من السماء ماء حق كورونا إلهي بيو كسو دجي سبحانه فأخرج به وحو كسو صاري حق سري وكسو دجي من الثمرات من أردن رزقا لكم يضا إذين تهي محي أرساقدي وحا ديفستان وعنتان مدها سأرساقدي دينا فلا تجعلوا لله أندادا إلهي هوية لنا إلهيال يا وحيابا لا عابدان وأنتم تعلمون إذن كو قلنا إياه إنان إلهي عدنا وهلنين عدنا وحلي يالان كريم باغبا كنعي يرمدا سي إلهي وحو يريا وخلق قرن قال يا إسلامي وحو أبو ري يا أيها الناس جنكينا waa soo galaya yeedbada inka soo dadun lagu tilmaamo amarku ilaahay siiye waxa weey ilaahay nacaabuda marka insaankii waxa loo abuuray cibaadada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jiniyasi uma abuurin buu ilaahay wax kale inay caabudaan mooyaan marka dadka hadiya jeer ilaahay caabudaa waxay garteen sirtii nolosha dadkaan ilaahay caabudin ma bay garanba waxay u noolyihiin ربكم رب النبضة إلهي ونو إضافية إضافة واحد الماميسا إنه حق يشاء عباده يواكيكو أبوري إسكما أبور من هو يدا يا أبهانا كما أبورين إلهي بكو أبوري سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وصدح ميدون بين نقول لها إن أبورتي ينعيدك لكو أبورتي يينا إلهي كو أبوري يينا اسكا أبوران توافر تامدون سدح ما جيران عيد كلور إلهي هاينو كو شيغان كرتا أما أوران كرتا أنيغا ددك أبورا ما جرتو نمرود باس qaado yidhi qoraxdaasan ka taliya in yar buu soo fashil marka cidda maanta tiraahdo warshadayda dad soo saarta de horeyba ka fashilmaysa qof oran karaya ana wax abuurayna ma jiro kayidhi waan iska abuurmayna العدم لا يوجد وحبا لأني وحبا ما كانت صدح ذاك لمركي هرين وحا سو هري إنه إلهي أبو ري سبحانه وتعالى جبير بن مضعم آيات كائن وخرين سورة الطور كسوغانا أهرمها اسبربر دقيا قفك عقلي سقنعين يو آياتها يقنعيه بولي سوتشيت سببها هنا الإسلام ربكم هذه عبادة والعبادة عابدة يسر ربيين عابدة الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن كيو ددك إذن كيو ريبا إلهي بابورا marka rububiyada ilaahay waa inay raacda uluhiyada ilaahay oo aan la kala reebin oo aan la oran rabbi oo adaan abuuray laakiin cid kale aan caabudayna ma qabata ilaahay subhanahu wa ta'ala labadaas is raaciya ayada oo fiirso mar hadaad ogoshay inuu ku abuuray cid kale ha caabudin cibaadada samarada iyo midhaha ilaahay waxa kamid ah la'allakum tattaqun ina cabsataan cibaadada taqwa laga waayo cibaadada ma aha hadaan cibaadadaadu wax taqwa lahayn cibaadada noqon mayso waxaa jira muqaabalo cajiiba ayaa halka ka muuqanayso ah firaasha al-ard as-samaa firaashan binaa wa fasaxad iyo balaaqadu leeyahay quraan waa eraye iska horjeedo oo si cajiiba isu qaabilsan awoodaha ilaahay kugu abaabulaya inaad kaligi rumayso waxa kamid ah cirkiibu ka soo dajiyay xaqiisa la biyo wuxuu ku soo saaray maxay midho aynu cunayno adigu ismaad abuurin tan labaadna waxay ku sheegaysaa arsaaqadaadana ma abuurin oo ma haysi maxaad meel kale ugu kici markaa ilaahay intuu ku abuuray ku maamulaya haddana waxaad afka ku guraysanaysa isagu ku siiyey falyandur al-insaanu ila ta'ami anna sababna al-maa'a sabba ila aakhir al-aayaat bal qofka bani aadamkii wuxuu ku nool yahay eego iyo cidda samaysay noocyadu leeyahay
falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuuna waxay kuu tilmaamaysaa ilaahay sanamyaal iyo waxaa la caabudaan ha u yeelina idinkoo garanayo arkayo ogsoon inuu keligii yahay dee ma qabato ilaahay inaad la caabuddo midaan waxba abuurin oo aan ku arsaaqayn ilaahaan labadaa abuurna haynin arsaaqadna hayn arrinkiisu waa maxay ilaahnimadiisu waa midaan jirin saasuu qur'aanka kariimkaa ilaahay dadka ugu qancinaya subxaanahu wa tacaala وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم